بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharkeenii taxanaha ahaa ee AutoCAD-ka. maanta waxa waaye casharkeenii saddexaad. hadduu ilaahay yiraahdo casharkan waxaan uga hadli doonaa waxa la yiraahdo dimension, sida loo sameeyo dimensionada, sidoo kale sida loo sameeyo textka iyo sida loo sameeyo layerka. sida ogsoonahay dimensionka waa muhiim, wax aanan dimension lahayn cid sameyn karta ma lahan. textigana waxa waaye shayga lagu cadeyn lahaa shaygan waxa uu yahay. layerkana waxa ogsoon tahay waxa sameynaysaa floor plan oo ka kooban albaab, derbi, daaqad. marka waxaa loo baahan yahay shay kastaba inuu yeesho layer u qaas ah. marka casharka waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo saddexdaas walxaato. kusoo dhawaada marka. maanta waxaan ka bilaabi doonaa sida loo sameeyo dimensionka. sida loo sameeyo waxa horta dimension marka hore inta laga soo doortaa, halkaas ay ku qoran tahay dimensionkaas laga soo doortaa. marka waxaan u baahanahay marka hore horta inaan dimensionkeena fixed gareyno oo aan fadhiisino. marka koowaad waxaan qoraynaa dim style ama d caadi hadaa qorto waa dimension style laga wadaa, waa kaasa waa ku dhufanee. markaad ku dhufato waxaad tagaysaa modify markaad tagto marka waa ujeediin meesha waxyaabaha ku qoran dhan mid kastaba shaqo gooni u qabtaa. kan waxa ugu horeeya hadda waa linekan meesha ku jiro waxa waaye waa limeskan, kuwaas aa ujeediin oo kasoo kacayaan shaygii aad rabto inaad cabir ka qaado. waxaa kaloo ku xigo arrows and symbols and arrows, iyagana waxa waaye waxay ku cadeynayaan falaaraha nooca isticmaaloosid iyo sizeska leeyihiin waxyaabahaas. waxaa kaloo ku xigo textiga waa meeshii oo numberska qoraalka oo kusoo saari lahayd. waxaa kaloo ku jiro fit primary unitka, asagana sidoo kale unitka aad u baahanta aad ku saxanaysid alternative unit. waxaas dhan waxa waaye waanu arki doonaa hadduu ilaa yaraado qaabka u shaqeeyaan. marka dimension markaas aan usoo gasho waxaan sameynaynaa, waxaa tegay text meesha ku qoran tahay. textiga markaad tagto waxaad tegaysaa standard meesha ku qoran tahay, saddexdaas dhibcood ku dhufanee. saddexda dhibcood markaa ku dhufato meesha waxaa kugu qoran waa height iyo width factorka oo loo u baahan tahay inaad ku dhufato. marka heightka oo qoraalkeena rabnaa inaan bedelno oo aan yareyno ama aan weyneyno si uu noogu soo muuqdo. hadda waxaan ka dhiganaynaa 1 oo kale ka dhigee. dan waxaan leedahay apply close dheh. okay markaan waxaan leedahay set current save garay aan leedahay. leedahay marka hadda dimensionka haddii aan soo qaadano aan aragno qaabka u shaqeynayo dimensionkeena. kaasa uu kusoo muuqday hadda dimensionkaagi oo ujeedaa. marka waxaa dhici karto marmarka qaar inuu dimensionkaaga ku muuqan waayo, kaba soo qaad sidaan oo kale inuu sizekaagi uu ka xoogaa yiri. anaga sizekeena hadda 1 aan kasoo dhiganay. haddii aan sizekeena 1 ka yareyno kale muxuu qaabku noqonaya arkeena haddana 0.05 oo kala gelinayna. 0.1 oo qaatay close dheh. set current then close dheh. waa ujeeda hadda wax kusoo muuqanayo malahan oo hadda dimension wuuna ku jira dimensionka meeshuu ku qoran yahay. waa kaas mujeeda waa 8 mitir meeshuu ku qoran tahay, laakiin ma kusoo muujinayo. si markaa usoo rabtin hadaara usoo muujisato waxaa leedahay dim style. leedahay modify text standard then saddexdaas dhibcood ku dhufane. saddexda dhibcood markaa ku dhufato heightkana marka bedeleynaa 0.1 meeshuu ka waxaa leenahay 0.5 oo kale ama 0.8 oo kale aan leenahay. apply close. set current close. waa kaas hadda dimensionkaagi uu kusoo muuqday. linear dimension markaad waxa anaga hadda dimensionka aan sameynayno waxaa jiraan aligned dimension, waxaa la dhaho angled dimension, waxyaabo fara badan jiraan. isku soo day oo isku soo taxwiijinaysa sameyso. markasta aad practicada badiso waa markasta aad
si fiican u fahanto AutoCAD-ka. So waa kaasa dimensionkeena saas loo sameeyaa. Okay, dimension hadii aan halkaas kaga tagno waxa kale oo sameynaynaa textiga asaga waa kaas halkaas ku qoran yahay. asaga waxaa leedahay left click aad leedahay, then markaas meeshaad rabto inaad wax ku qorto imaane left click aad leedahay waa ku dhufanee, then waa kaas asaas ku soo bixinaa qoraalkaaga. hadda kaba soo qaad kan wax waaye waa bedroom waaye bedroom. So waa kaasa bedroom, laakiin hadda waxaad moodaa inuu cabirkeena zaaid u weyn yahay. So marka waxaa leedahay left click then right click dheh, properties tag. properties markaad tagto halkan waxaad ka baartaa text height, waa kaasa waa 1 mitir uu gaaraa soo ma, laakiin marka waxaan u baahnaa ka yarina 0.2 oo kala leedahay enter. then waa kaasa hadda wax yar oo macquul ah ku soo baxay. textigana saas loo sameeyaa. okay, marka waxa u baahanaa hadda inaan sameeyno waxa la yiraahdo layer properties. layerka marka aad rabto inaad bedesho waxa sameynaysaa waxa tagaysaa layer properties ka. waa kaasa layer properties ka tagay layer properties marka tagto boxkan uu ku soo saaraa. si marka aan u sameysano layer cusub waxa leedahay right click new layer marka hadda layerkan waxa ka dhiganaa wall. layerkan waa wall uu yahay. layerkiga wallka marka halkan oo kale oo meesha colorka laga bedelayay waxaan leenahay colorkaas oo hadda baan qaadano inuu wallkeena yahay. halkan u jeedo waa line type-kaaga. marka waa farbadan waxyaabo badan ku jiro, waa continuous line inuu yahay, dashed line inuu yahay, center line. marka inta badan wallka waa continuous line dash ma noqdo. so marka halkan sidoo kale iyadana waxa waaye line width-kaaga laga bedeshaa oo line-kaaga thickness-kiisu yeelan lahaa ka bedelane. okay, waa kaasa haddana waxaan rabnaa inaan haddana layer kale aan soo gelino. right click aan leenahay new layer doors aan leenahay. marka doors aan leenahay door enter. kabacdi haddana isagana doorka color gooniya siineynaa. okay, blue kala siineynaa. okay, colorkaas blue hadda siinay. okay, text haddana sameynayna new layer aan leenahay. layerkeena haddana waxaan ku qoraynaa text inuu yahay layerkan kalena text inuu yahay. okay, layerka textiga waa kaas haddana enter leh. isagana waxaan ka bedeleynaa color gooni u yeelaynaa isagana. okay, waxaa kaloo rabnaa inaan sameyno dimension layer oo kale isagana inaan gooni ka dhigano. dimension dm la kasoo qaadanaynaa enter leh. isagana color gooni u yeelaynaa dimensionkeena. okay, hadda marka wixii ahaay layer dhan waa ku diyaarsan yihiin sida hadda kuu muuqato. so marka layerkaaga inaad diyaarsato waxyaabaha oo kuu fududeynayso waxa waaye hadhow markii aad sameynayso sidoo kale 3D-ga waxaa u baahan tahay qeybo ka mid ah inaad iska xirto. marka u baahana marka inaad qeyb xiro kale halkaan u jeedid waa freeze aan lahaa waxa waaye iga xir. marka hadda kaba soo qaadada layerska hadda aan sameynay mid kastaba layerkiisa aan ku active gareynin. hadda ma active gareysan oo hal layer noo wada yihiin. so marka kanoo kale hadda waxaan meesha yaalo dhan hadda waa doors iyo walls. so marka doorskan iska reebeynaa. doors markaa rabto inaad shay sample ku highlight gareysan inaad iska reebto shift qabo shayga dul tag leebis uu ka reebaa. waa kaas calaamada minus ku saaraa mujeedidu. saas un baa la sameeyaa marka u baahan tahay inaad
layer aad doorato kale inaad iska qaado. waxyaabahan kale waxaan ku baran doonaa haddii uu la yiraahdo marka aan gaarno sida floor plan loo diyaariyo. hadda marka waxaa noo highlight gareysan oo noo select gareysan wallski. soo marka wallskeen waa kan mujeeda hadda kalarkii caddaay wuxuu isku bedelay kalar jaalo ah. okay akaas hadda fiir wixii wall meesha ku yaal maxay noqdeen kalar jaalo ah. marka lookeyga hadda kale marka saan ay tahay freeze hadaan dhaho wiiga xiraa wixii wall meesha yaal dham wiiga xirayaan. waa kaas hadda maxay muuqdo waa albaabadii iyo tagaskiga meesha daayay bas. haddii marka freeze aan ka qaado hadana way soo noqonayaan. okay marka hadda waxaan rabnaa hadana inaan ka bedelno wallski dimension bahalkeen doorski ama albaabadii in ayagana bedelno oo aan ka dhigno kalarkii ay lahaayeen ama layerkoodiiba si aan hadhow iyagana iskaga xiri karo kale. okay kan waa highlight gareysanayna. okay waa fahansantihiin sida loo highlight gareeyo oo casharo hore kusoo qaadanay. highlighted oo kuwaas ah mid kastaba wuxuu qabto iyo qaabka uu shaqeeyaa waa fahansantihiin saan jeclahay. okay haddana waxaa tegaynaa daaqada sira soo fureynaa door waa kana oo ku active gareynaynaa isagan midkiisa. okay hadda mid kasta uu ku active gareysan yahay midkiisi kuwa marka okay aan ku noqdo ayaga highlight maahan. waxaa kaloo samayn karaa hadda haddii saan kale ay noqoto oo aan u baahdo inaa la meel dhigo waxaa sameynaysaa merge property waxa la dhahaa tagaysaa then wuxuu ku leeyahay source-ga tag. source markaa tagto waa kaas asaga dhanba layerkii aan ka dhigaa asagana oo doorka ahaa isku layer aan ka wada dhigaa ayaga dhan hal layer ku active gareysmayaan. kaasa okay kaas hadda marka kaba soo qaad sida marka ay tahay haddii aan wall select gareeyo meesha maxay ku soo qormay halka kore wall. haddii aad door select gareeyo meesha waxa ku soo qormayso door. so marka hadda waxaan rabnaa hadana tagskeena inaan bedelno asagana ku active gareeyno midka uu ahaa tagskii waa kan waa kaas asagana wixii tagas dhamna iyagana sunbaa u soo sameynaysaa mid kastaba wuxuu yahay ku soo dul qoraysaa. okay dimensionka marka aan rabo marka asagana dimensionkeyga waa kana waa saaran karaa marka hadda waa kaasa ujeedada hadda cabirkeyga kalarka daay u ahaa ma ahan haddana wuu isbedelay oo haday kalar cadaan oo hadda laakiin kalar oo waxa ay saaran gray camal ah. marka aad u mahadsantihiin haddii aad ka heshay casharkan subscribe share garay si ay kula wadaagaan ardayda kale oo walaalaha Soomaaliyeed ah. marka aad u mahadsantihiin.